Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Yaa xayo yaa qayyuum ma maqashay faa'iidooyinka ay leeyihiin. Maanta wax yar oo faa'iidooyinkaas ka mid ah ka hadlaynaa. Soo dhawow. Qofka had iyo jeer ku celceliya wuxuu dareemaa xasilooni iyo deganaan, qalbigiisana waxaa ku yaraada walbahaarka iyo murugadaba. Waa magacyo xoojiya xiriirka addoonka iyo rabbigiisa. Qofkii si joogto ah ugu celceliyaana Eebbe wuxuu ku hanuuniyaa toosnaanta. Waxaa la wariyay in Nabiga sallallahu calayhi wasallam uu inta badan ku ducaysan jiray yaa xayu yaa qayyuum biraxmatika astaqiith. Ku celcelinta magacyadan waxay difaac adag ka noqotaa waswaaska iyo falalka shaydaankaba. Waxaa la sheegaa in qofka had iyo jeer dhaha ducadan uu arko barako noloshiisa ah, yacni caafimaad iyo risqiba ay u barakoowaan. Waa labo magac oo duco kasta lagu bilaabo ama lagu daro. Ducada dhexdeeda lagu daraa ama ducada lagu bilaabaa si ay u noqoto mid la aqbalo, maadaama ay ka mid yihiin magacyada ugu wanaagsan uguna sareeya magacyada Alle subxaanahu wa Qofka tacaala. culays ama murugo dareemaya marka uu dhaho yaa xayu yaa qayyuum biraxmatika astaqiith, niyadiisa way nasataa, Allena wuu u fududeeyaa umuurihiisa insha Allah. Qofka mar walba Eebbe ku xusa magacyadan waxaa qalbigiisa lagu toosiyaa khayrka iyo hanuunkaba, Allena wuu u furaa albaabadiisa naxariista xitaa meel adoon ku filaynin. Dhammaan magacyada Alle waa sir iyo furaha nolosha ruuxiga ah. Qofkii ku noolaadaana wuxuu dareemayaa nolol iftiin leh iyo qalbi degan ee aan ku noolaano si aan u liibaano adduun iyo aakhiraba insha Allah. Asalaamu calaykum.